agoon hadaa jana rabtid agoonta lacag ku bixi qofkii jana raba agoonta lacagta ku bixiyo oo Soomaali ah nimco khaliif waa hooyo Soomaaliyeed oo kamid ah jaaliyada dalka Mareykanka waxayna ku nooshahay magaalada Grand Forks ee gobolka North Dakota iyadoo 22 bishan ay kala wareegeen 6 caruur oo ay dhashay xuquuqdii waalidnimo hay'adda badbaadada caruurta oo loo yaqaan Child Protection hooyo nimco ayaa waxaa maanta la soo taagay iyada iyo caruurteeda maxkamadda gobolka waxaana dacwadda ka soo qayb galay dad badan oo Soomaaliyeed oo ka kala yimid gobolka Minnesota iyo gobolada ku xeeran Ali Maxamuud Faarax oo ii sheegay in ay ilmuhu agoon yihiin isaguna adeer u yahay ayaa markii dhageysiga maxkamaddu soo dhamaaday waxa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u sheegay in kiiskii dib loo isugu soo noqon doono 10 bisha Febraayo kiiskii dib loo dhigay February 10keeda ayaa dib loogu dhigay sida ula socda Soomaaliya oo dhan arrintu sidaas ay noqonaysaa cabdirasaaq ducaale waa maamulaha masaajidka Hooyo ee dhaca bartamaha magaalada East Grand Forks wuxuuna ka mid yahay dadka waqtigoodii galiyay caawinta hooyo nimco isagoo ii sheegay inay wadi doonaan inta ay ka guulaysanayaan aad baad ugu mahadsantihiin gacantii midaysan baa wax qabata midnimadeena ayaan guul ku gaaraynaa maxamuud muuse xasan oo loo yaqaan BBC kana mid ah siyaasiyiinta gobolka Minnesota lana shaqeeya looyarada ayaa ka codsaday jaaliyada Soomaaliyeed in lala shaqeeyo garyaqaanada in looyarada laftigooda annaga aan la shaqeyno si marka dacwadda runtii hadda ay bilaabato 10 bisha waxa la keenayaa dacwadda sababta ilmaha looga qaaday kadibna marka la soo bandhigo dabcan looyaradan kalena waxay iyaguna difaaci doonaan gabadha Zainab Yusuf oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee degan magaalada Grand Forks Maxamed Cabdi Wardheere oo kamid ah waxgaradka gobolka Minnesota iyo Axmed Maxamed oo ku hadlayay magaca caa'ilada caruurta ayaa u mahadceliyay dhamaantood dadkii ka soo qayb galay waxa tiin dad wanaagsan oo haar fiican leh waan idin mahad celinaya anoo ka hadlaya afka caruurta ku hadlaya waan idin mahad celinaya walaalayaal gacmaha isqabsano haar fiican baad leedihiin aad baan idinku mahadnaqayaa hawshina wali waa inoo sii soconaysaa continue waxaan rajaynaynaa inaan dhammaan ka qayb qaadan doono kullee wixii soo kordha guddi baa loo sameeynaya haddii alla idmo haddana guddi hore oo sii shaqeynaya jira marka waxaan rajaynaynaa insha Allah qof walba idin ka mid ah aan ka qayb qaadano dhaqaalaha laga qayb qaato qof walba hal la gaarsiiyo ilmahan maanta waxay u baahan yihiin garab istaag waxay u baahan yihiin garab waxay u baahan yihiin gargaar waxay u baahan yihiin caawimaad xaakimka maxkamadda ayaa hooyada caruurta laga haysto u ogolaaday inay arki karto oo ay naas nuujin karto cunug yar